السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalo aad baad ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirto anigoo ah manager Saadiye Xirsi oo kamid ah managerada waaweyn ee company-geena weyn ee Forever Living Product waxaan insha Allah taala jecelahay inaad warbixinta oo dhameystiran oo luqadaada Soomaaliga ah oo si fiican lagugu soo tafatiray inaad insha Allah taala ka bogan doonto waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Cusmaan ma sha Allah tabarakallah soo dhaw walaal assalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي آد بان ولا لكو سلام يا مركو جهريسة سود وو مقعي هو عثمان وحنا نشوقا وندقنا ودنك كندا وحنا نكمل ولا لها الصوماليات كفاية يستجنح سجني أنكوصو بندقايو وحان كشقيني كنح سجني صدح دي سنة ودن بي وحانو سير مايسترن وبدلين ولا شيء ده ينولا شكوميال قف أو صوماليات ugu horeyn waxaan kaaga mahad celinayaa xiriirkaaga wanaagsan iyo sida aad ugu diyaarsan tahay isbedel inaad samayso sida ay kaaga go'an tahay inaad ganacsiga ka faa'iideysato hambaliya ayaan ku leeyahay hadaba hadii aan ku soo dhawaado warbixinta waxaan doonayaa si guud oo overview ya ama kooban inaan kaaga warramo company-gan iyo qaabka uu shaqeeyo iyo wax soo saarkiisa insha Allah taala company-ga hadii aan ku horeeyo company-ga magaciisa waxa la yiraahdaa Forever Living wana company jira dhowr iyo 40 sanadood sanadii 1978 ilaa maanta ayuu adduunyada ka shaqeeyaa ma sha Allah company-ga waxa ka faa'iideystay dad fara badan oo malaayiin qof ah oo maanta 160 wadan oo company-gu ka shaqeeyo ku kala nool sanad walbana waxa soo gala malaayiin qof ayaa soo gala ma sha Allah tabarakallah company-gani waxa uu dhulkeena yimiday sanadii 2018 mudada uu company-gu shaqeynayna dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed aabayaal Soomaaliyeed dad fara badan ayaa runtii ka faa'iideystay ganacsigani guulo waaweyn ka gaadhay maanta ku nool oo ka sameeya dhaqaale $100 $100 ma sha Allah nin badalkiisa iyo sidoo uu shaqeeyo ka sameeya hadaba company-gani soo kale waxa uu xarumo ku leeyahay wadankeeni magaalada Hargeysa ayuu xarunta ugu weyn ku leeyahay ee alaabta laga iibsado sidoo kale waxa uu xarumo ku leeyahay Jigjiga Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliyeed ba ma sha Allah runtii company-gani taariikh ahaan aad buu yahay dhaqaale ahaan waa company degan waa company aad 100% aamini karto oo aad isku haleyn karto weey hadaba hadii aan wax soo saarka company-ga oo iyaduna ah su'aasha labaad ee qofku markuu company-ga ogaado ee uu company-ga ku qanco la doonayo iyadana inuu fahmo wax soo saarka company-ga hadii aan in yar iniga warramo walaalayaal company-gani waxa weey oo company-ga ugu weyn adduunka ee soo saara geedka dacarta isla markaana dhoofiya isla markaana warshadeeyo weey geedkan dacartu waa geed faa'iidooyin fara badan leh waa geed qarniyaal fara badan la isticmaali jiray oo la isku daaweyn jiray weey ma sha Allah productyada company-gani soo saarana waa alaabo aad iyo aad u tayo sareeya oo tayadooda la xaqiijiyay oo isla markaana dabiiciya oo heerbala oo wax dhibaato aan lahayn haba yaraatee alaabtan waa alaab xalaala waa alaabna ma garanaysa shahaadooyin waaweyn oo caalamiya haysata hadaba qaybaadka alaabta ee company-geenu soo saaro waxay ka koobayeen saddex qaybood ama saddex qaybood ba u qaybsamaan qaybta ugu horeysa waxa weeye waa qaybta caafimaadka waxa kamid ah qayb cunaawiyaal ama caafimaadka qofka xoojinaysa waxa kamid ah qaybta gaaska waxa kamid ah qaybta babaasiirta waxa kamid ah qaybta taranka xagga ragga oo runtii ma sha Allah alaabaha loogu jecel yahay kamid ah raganimada kor u qaadaysa xagga awoodda bacriminta kor u qaadaysa raganimada sidoo kale waxa weeyaan hormoonka dumarka oo kale productiga ka caawinaya inay balance noqdaan alaaba vitaminisa ma sha Allah oo difaacayna xoojinaya sidoo kale waxa kamid ah dadka xanuunka ka cabanaya ama jilba xanuunka ka cabanaya dadka ka cabanaya sidoo kale macaanka ama dhiigkarka qaba ama beer subaga qaba dhammaan productiga caafimaadkooda ay kor ugu qaadi karaan oo caawinaya ayuu company-geenu inoo haya waxa inoo taala sidoo kale productiga loogu talagalay caruurta ma sha Allah oo iyaguna ah alaabo aad iyo aad u tayo sareeya oo caruurteenu ay aad iyo aad ugu baahan yihiin isla markaana waxa weey waalid walba inuu siiyo ay laga maarmaan tahay waayo waxay ka qayb qaadanayaan koritaanka jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed ee ubadkeena walaal waxa kamid ah qaybta labaad ee company-geenu soo saaro waa qaybta maareynta miisaanka oo iyaduna noqonaysa saddex qaybood qaybta miisaanka lagu dhimo iyo qaybta miisaanka lagu kordhiyo iyo qaybta caloosha oo kaliya lagu jiro marka saddexda program ayaa miisaankana company-geenu haya qaybta saddexaad ee company-gu soo saaro waxa kamid ah
qaybta qurxinta iyo cosmeticska. qaybaadka qurxinta iyo cosmeticska company-gu soo saaro waxaa kamid ah qaybta daryeelka timaha oo ka caawinaya timaha daadanaya, timaha googo'aya, timaha jajabaya, yacni timaha daryeelkoodii oo dhan. soo kale qaybta wejiga masha Allah hadday noqoto finanka xalintooda, hadday noqoto gudguduudka, haaraha ama wejiga oo daldalool waxyaabo noocaas ama tushtush ku yimaadeen, wejiga quruxdiisii hore inay soo noqoto. qaybta la dagaalanka xagga da'da lama yareyn karo, laakiin qofku waa uu isqurxin karaa wejigiisa masha Allah. marka qayb anti agena ayaa inoo taala sidoo kale masha Allah. waxay noo yaala company-gu oo inoo hayaa qaybaad aad u fara badan oo daryeelka maalinlaha la yiraahdo. waxaana kamid ah daawada ilkaha oo ilkaha bright ka dhigaysa kuna qurxinaysa, faa'iidooyin fara badan ilkaha u leh masha Allah. saabunihii bay noo yaala, deodoronadii bay noo yaala, waxa kaloo inoo yaala lipstick dabnaha masha Allah. xataa alaabta company-gu soo saaro waa alaab dhammaystiran, hadday noqoto qaybtii caafimaadka, hadday noqoto qaybtii maareynta miisaanka, hadday noqoto qaybtii sportiga, dadka sportiga sameeya ma garanaysaa. sidoo kale hadday noqoto dadka quruxda ama shoppingkii oo dhan bay noo yaala. marka masha Allah tabaarakallah, dhammaan alaabtani waa alaab qof walba u baahan yahay, gurigiisana looga baahan yahay. tusaale haddaynu soo qaadano gaaska oo kale, waxaynu ognahay in ma garanaysaa gurigan haddii aad ka baxdo oo guriga kale aad tagto qof gaas qabaanad ka waayin. qaybta caafimaadka xagga taranka, ragga iyo dumarka labadaba waa alaabaha loogu jecel yahay. infectionka sidoo kale ma garanaysaa babaasiirta sidoo kale, lafa xanuunka sidoo kale. runtii alaabtu maaha alaab kala dhacdo walaalayaal. haddaba sidee buu qofku uga shaqaysanaya company-gan ama se uu dhaqaalo uga sameynaya? guud ahaan company-gan si aad dhaqaalo uga samayso, marka ugu horeyso waa inaad kamid noqoto. kamid noqoshaduna waa bilaash, haba yaraatee wax lacaga oo company-gu uu kaa qaadaya ma jirto. sidaa awgeed company-ga markaad kamid noqoto wuxuu ku siinayaa ID number bilaasha, isla markaana waxa uu company-gu ku leeyahay laba qaab ayaad iga shaqaysan kartaa. labada qaabna waxa weeye ugu horeyn inaad mataqaanaayay alaabta sii tafaariiqayso adigoo jimlad ku heli doona, sidoo kalena aad walaalo kale kusoo xidho iyaguna alaabtan company-ga ka iibsada oo sii tafaariiqeeya, jimladna ku hela. walaalahaas waxay company-ga ka iibsadaana lacag bonus oo commission ayaad ku yeelanaysaa masha Allah. dhinac markaa macaamiishii baad ka samaysan doontaa, dhinacna team ama group alaabta iyaguna sii iibiya ayaad ka samayn doontaa. faa'iidooyinka groupka kugu jira waxaa kamid ah dhaqaalahaad ka samaynaysa ma aha mid cayiman, because dadkaad kusoo xidhayso company-gu ma xadidaya mar walba 1, 2, 3, 100 in alla intii dada ay hadasho ayaad kusoo xidhi kartaa. alaabta ay company-ga ka iibsadaana boqolkiiba waxbaad ku leedahay. sidoo kale waxyaabaha aad heli doonto waxaa kamid ah in lagu caawiyo oo si dhammaystiran lagu caawiyo, lagu tababaro. waxa kale oo aad heli doonta insha Allah taala inaad hadafkaaga aad ka rumayso company-gani. way dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed, hooyooyin fara badan oo Soomaaliyeed, dad Soomaaliyeed oo adiga kula mid ah iyo dad ajaaniba oo adduunyada meel kala duwan jooga ayaa company-gan riyadoodii ka gaadhay kana rumeeyay masha Allah. adiguna waad ka rumeyn kartaa. company-gani waa company adduunka 160 wadan ka shaqeeya. marka alaabtaada waxaad ku iibin kartaa adduunka intaas oo dhan baad ku iibin kartaa adigoo lagu samayn doono qaab online, link lagu samayn doono, linkigana ku iibinaya masha Allah wadanada ka fog. sidoo kale waxa weeyaan company-gaaga waxaad alaabta waxaad ka iibin doontaa asxaabta ku dhow, dadka ma garanaysaa masha Allah u baahan ma garanaysaa leedahay way ku dhow yihiin gaari karto ayaa si offline aad uga iibin doontaa. sidoo kale teamka aad company-ga ku soo xidhayso adduunka dhan ayaad kaga soo xidhi doontaa, qof walbana meeshiisa ayuu kaga shaqaysanaya masha Allah tabaarakallah. haddaba company-gu waxa uu isticmaalaa oo alaabta company-ga lagu cabiraa halbeeg u gooniya daawada ilkaha, mataqaanaa qaybta gaaska, qaybta miisaan dhimista, yacni productyada uu company-gu soo saaro mid waliba halbeeg gooniya ayuu leeyahay ama cabir gooniya ayuu leeyahay. qof walbana wadanka uu joogo ayuu cabirkaas u bedeshaa. cabirkan waxaa la yiraahdaa CC. marka CC-gu waxa weeyaan waa lacag company-ga u gooniya oo company-gu dhexdiisa laga isticmaalo weeyaan. marka CC waxa weeyaan waa wax had iyo aad kugu badan doona had iyo jeer dhammaanba darajooyinka company-gana lagu buuxiyo oo darajada koobaad intaasoo CC, talabaad intaasoo CC laga doonayo insha Allah taala. marka CC-gu waa maxay? CC-gu waxa weeyaan waa lacag ahaan, lacagta wadankaaga ayaad u bedelanaysaa mar walba. haddaba si aad company-ga dhaqaale uga samayso oo company-gaad uga faa'iidaysato waxa laga doonayaa ugu horeyn inaad iska diiwaan geliso, kadibna company-gu qiimo dhimis buu kuu sameynaya 5% ah. ID number-na wuu kuu sameyn doonaa, account-kaaga iyo dukaankaagina waa lagu furi doonaa. kadib insha Allah talaabada labaad waxay noqon doontaa inaad adeegaagii aad dalbato oo masha Allah
alaabtii aad dalbato marka kadibna lagula qorsheeyo maadaama tallaabadii koowaad aad qaadayso dalabka aad dalbanayso aad darajada koowaad ku buuxinayso marka darajada koowaad waxaad ku buuxin doontaa 2 cc waad ku buuxinaysaa 2daas cc waxay u dhigmaan markaad xarunteeni Hargeysa ama wadankeeni aad ka adeeganayso $500 bay u dhigmaan $500 ee darajada ku buuxinayso waad kala yaryaraysan kartaa 2 jeer 3 jeer inaan la intii aad markaa awoodo ayaad ka dhigan kartaa ilaa iyo dalabka ugu yar ilaa iyo 500 aad gaarayso ayaad ka dhigan kartaa sidoo kale company-gu maadaama darajadan koobaad ay muhiim tahay si aad u gaadho wuxuu ku diyaariyay alaab aad hal mar qaadan karto oo xidhma oo bogosa oo la yiraahdo start your journey bag ama combo bag la yiraahdo oo aad ku buuxin karto darajada koobaad alaabtan qiimaheedu waxa weeye $385 alaabta aad qaadatana darajada koobaad waad gaaraysaa darajada koobaad marka aad gaadho maalinta laga bilaabo saacada laga bilaabo company wuxuu ku siinayaa 30% ayuu ku siinayaa discount isla markaana 5% lacag ahaan bishu markay dhamaato ayuu dib kugu soo celin doonaa oo cashback bay noqonaysaa isla markaa darajada gaadho adiguna walaalo kale ayaad ku soo xidhi qof kasta aad ku soo xidhana waxaad ku heli doontaa commission 100% gaaraya ilaa 30 ma sha Allah dhaqaale fiican oo xad lahayn ayaad ku sameyn kartaa adduunka dhan baa ku furmaya kadibna darajada labaad baa lagu qorsheyn insha Allah sidii aad ku gaari lahayd alaabtiba iyadana ku jabay supervisor baa la yiraahdaa ma sha Allah darajooyinka shirkadda waxa lagu buuxiyaa laba bilood mid walba 2 bilood baad haysataa inaad ku buuxiso ma sha Allah bishaad soo gashay xilligaad ka soo gashay yaani bishaad soo gashay iyo bisha kale labada bilood baa la isku qabanayad ku buuxinaysaa darajada labaad 5 dhibcood baa lagu buuxiyaa maxaad faa'iidiyadana alaabtiba ku jabay oo raqiis ku noqon ma sha Allah kadibna waxa weeyaan commission-kaagina kor ayuu aadayaa oo aad buu u badanayaa dhaqaale fiican oo ilaa $200 $700 gaaraya bishii ayaa darajada labaad lagu sameeyaa ka badanna waad sameyn kartaa way xad meel dhaqaalaha sameynayso kadib darajada saddexaad ayaad u gudbi doontaa insha Allah ta'ala iyadana alaabtiba ku jabaysa commission-kaagina aad iyo aad buu ku badanaya caadiyan hadii aad 9 qof oo active aad company ku soo xidho adiguna aad dadaasho markaaba darajada saddexaad waad gaaraysaa ma sha Allah assistant manager ayaana la yiraahdaa darajada afraad waxa la yiraahdaa manager wana darajada ugu qiimaha badan ee company-ga laga gaadho waxaad heli doontaa darajadani qiimo dhimis 48% waa halka ugu dambayso company-ga ma sha Allah ee laga gaadho qiimo dhimis ma sha Allah tabarakallah darajadan marka aad gaadho waxa kale oo aad heli doontaa commission-kaagu inuu aad kugu bato dhaqaalaha lagu sameeyo wuxuu u dhaxeeyaa ilaa iyo mataqaanaa $2700 buu gaari karaa iyadoo ku xiran tahay hadii jeer sida aad u shaqeyso alaabta faa'iidada ka helaysa maaha mid cayiman soo kale teamka aad dhisaysa ee company-ga aad ku soo darayso maaha dhaqaalaha aad ka helaysa mid cayiman waa mid hadii jeer dadaalkaaga ku xiran mar hadii aad manager noqoto waxa ku xiga waxa weey hadiyadaha company-ga oo ah hadiyada gaariga inaad u tartanto hadiyada ilaa 3 gaari buu company-gu bixiyaa hadiyada ma garanaysa dalxiiska oo iyaduna ilaa 2 dalxiis company-gu bixiyo iyo hadiyada la yiraahdo cheeguna wax kale maaha walaalo waa share-ka company-ga faa'iidada guud ee company-gu sameeyo sanadkaasi inaad qayb ahaan aad u helayso hadaba company-ga istabiska ama talaabooyinkaas ayaa aad qaadaysaa si aad dhaqaale uga sameeyso si aad cheega oo halka ugu sareysa ee company-ga aad u gaadho waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa inaad isdiiwaangelintu waa lacag la'aan kadib ID number lagu sameeyo kadibna darajada koobaad buuxiso maadaama darajada koobaad marka aad buuxinaysa aad faa'iidi doonto inaad alaabtuna ku jabto discount-kii weynaana aad hesho ma sha Allah ilaa 30% ka ahaad gaadho ma sha Allah isla markaana aad group-kaaga iyo team-kaaga aad u sameeyso iyadoo adduunku ku furmayo shaatigii ganacsiga aad qaadanayso oo aad noqon doonto forever business owner ma sha Allah tabarakallah aniga shakhsiyan ganacsigan waxaan ka bilaabay wadankeeni hooyo 2019 aniga oo aan joogin waliba wadankii ayaan ka bilaabay ma sha Allah kadib ganacsigaygan waxaan ku dhaqaajiyay oo aan ku socodsiiyay online-ka ama social media alxamdulillah maantana waxa weeyaan meel aad iyo aad wanaagsan ayaan marayaa company-gana helaan ay ka mid tahay dalxiisyadii company-ga helaan dad fara badan maanta qoysas fara badan oo kumayaal gaadhaya aniga dartay alxamdulillah iyo sabab aniga aan lahaa ay guulo waaweyn ku gaadheen falilah alxamdu marka company-gani ma kaliya inaad wad guuleysanayso laakiin maanta markaad soo gasho walaalo kale oo Soomaaliyeed ayaad caawin doontaa sidoo kale adigana diyaar ayaan ku nahay inaan ku caawino kaliya waxa laga doonayaa si lagu diiwaan geliyo oo tallaabadii ugu horeysay aad u qaado magacaaga saddexan xilliga dhalatay iyo email-kaaga inaad u dirto qofka codkan ama fariintani ku soo diray kadibna uu ku diiwaan geliyo kadibna darajada koobaad isla markaas isku diiwaan gelisaba lagu qorsheeyo ma sha Allah horena aad u socoto waayo hadii aad isdiiwaan gelisay waxa muhiim ah markaaba inaad dalabkaaga aad sameeyso ayaa muhiim ah
wax waliba waa suuragal kombanigani kaliya waxa laga doonaya adigu inaad is aaminto naftaada aad ku kalsoonaato haddii dadkaas oo dhanba ay guuleysteen adiguna waad ka guuleysan kartaa gurigaagaad ku shaqaysanaysaa dhaqaalaan xad lahayn baad samayn kartaa awoodaadu way ballaaran tahay because businesskani meel walba waad kaga shaqaysan kartaa maanta halkan aad joogto haddaad ka guurto beritoole oo waddan kale aad u guurto halkaas ayaad kaga shaqaysanaysaa tusaale ahaan anigu maanta Canadaan joogaa laakiin ganacsigani markii aan bilaabay waxaan deganaa wadanka Faransiiskan deganaa alxamdulillah ganacsigana wadankii baan ka bilaabay ma sha Allah marka alxamdulillah soo dhawo walaalo waxaan rajeynayaa go'aan qaadatay aad ka faa'iideysan doonto oo aad markaas duwaan geliso aanu trainada iyo qaybaha kale iskugu iman doono aad iyo aad baad u mahadsantahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh